I go to school. I will go to the market. Simple present tense. He is eating breakfast. He is eating breakfast. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan idinla wadaago barnaamij yar oo muhiim ah oo ku saabsan barashada luqadda Englishka waa challenge waxaan weydiin doonaa tenseska asigana waxaa laga rabaa inuu si fiican uga jawaabo marka waan arkaynaa insha Allah waa challenge aad muhiim u ah idinkana aad ka faa'iidi doontaan qastan dhanka luqadda Englishka okay magaca ku bilow Abubakar oo loo yaqaan Shanshiyo. okay Abubakar su'aasha koowaad waxaa oranaysaa sida tan I'm going to school in tensege waaye Present continuous tense. masha Allah marka waxaa laga rabaa I'm going to school inaad u bedeshid present tense I go to school. ku celi mar kale I go to school. masha Allah waa saxay si wanaagsan buu uga jawaabay okay su'aal kale weydiin doonaa she cooks a dinner which tensege waaye she cooks a dinner Present tense. present tense moobta ما شاء الله واصحي waxaad u bedeshaa soo celi mar kale waxaad u bedeshaa simple present continuous tense Iwali. and she cooks a dinner waxaad tiri waa simple present tense waxaad ka dhigtaa marka simple present continuous tense She is cooking a dinner. ku celi mar kale She is cooking a dinner. she is cooking a dinner ما شاء الله waa saxay si wanaagsan buu uga jawaabay okay isla ayada waxaad u bedeshaa oo aad ka dhigtaa future tense She will cook a dinner. ku celi mar kale She will cook a dinner. she will cook a dinner ما شاء الله si sax buu uga jawaabay isla ayada waxaad ka dhigtaa marka simple past tense Simple past tense. She cooks a dinner. ku celi mar kale She cooked a dinner. she cooked a dinner simple past tense ku celi mar kale She cooked a dinner. صح ما شاء الله oo saxay she cooked a dinner waa simple past tense ما شاء الله okay waxaan ku xijin doonaa marka qaybta xigta waad mahadsantahay Abubakar okay qofka xiga magaca ku bilow magayga waa Abdixaafid su'aashan waxaa oranaysaa sida tan I'm going to the market tensege waa marka hore present continuous tense. waxaad u bedeshaa simple future tense Simple future tense tense. I will go to school. I will go to the market. I will go to the market okay waa saxday okay I will go to the market waxaad u bedeshaa simple present tense Simple present tense. I am going to the market. ku noqso mar kale I go to the market. I go to the market simple present tense oo sax okay Abdixaafid waxaan ka rabaa I will go to the market waxaad u bedeshaa aad ka dhigtaa simple past tense I went to the market. ku celi mar kale I went to the market. I went to the market waa sax waad mahadsan tahay okay qof kale aan fiirinayna marka ay xiga haye okay marka qofka xigan weydiinaynaa haye magaca ku bilow magacaygu waa Cabdiraxiin oo ku magac dheer Abdaa waaye. okay Cabdiraxiin su'aal baan ku weydiinayaa oo ku saabsan luqadda Englishka especially tenseska waxay oranaysaa su'aasha sida tan I'm going to school tensege waaye Present continuous. present continuous okay I'm going to school waxaad u bedeshaa simple present tense simple present tense waxaad u bedeshaa I'm going to school I go to school. ku celi mar kale I go to school. I go to school waa sax ma sha Allah okay Cabdiraxiin waxaan ka rabaa I go to school waxaad u bedeshaa simple past tense I went to school. ku celi mar kale I went to school. I went to school ma sha Allah waa saxday waxaan ka rabaa isla tan su'aashan waxaad u bedeshaa simple future tense I will go to school. ku celi mar kale I will go to school. ما شاء الله si sax baad uga jawaabtay waad mahadsan tahay okay qofka kale aan fiirinaynaa xiga okay qofka xiga magaca ku bilow magayga waa Cabdiraxmaan. okay Cabdiraxmaan su'aalan ku weydiinayaa inaad ka jawaabtaan ka rabaa waa su'aal ku saabsan tensiga he ate breakfast tensiga waa marka hore Simple past tense. simple past tense he ate breakfast marka waxaa laga rabaa inaad u bedeshid simple present continuous tense He eating breakfast. he Eating breakfast. waxbaa ka maqan meeshaas si fiican fakir mar kale ku celi su'aal he ate breakfast waa simple past tense waxaa laga rabaa inaad ka dhigtid simple present continuous tense He is eating breakfast. he is eating breakfast waa saxday ma sha Allah waxaad ka dhigtaa marka simple future tense
He will eating a breakfast. ku celi mar kale He will eating a breakfast. maya waa qaladay waxaa laga rabay he will eat breakfast wuxuu cuni doonaa isaga quraac okay waa mahadsantahay cabdiraxmaan hay thank you okay barnaamijkii halkaan aan kusoo gabagabaynaynaa waa inoo qaybta xigta iyo sida nabadgelyo please don't forget to like the video and also subscribe to the channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.